السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب وناكسن مالك السؤال شوفتان أصحابي كسور هذا برنامج كان لبعض ما أنتو ترادا عن دي سو قد بينه وضبط برنامج كان دي كوغاي إنه حاكم الدقون دونا إسرائيل وسلم فلانا ما أنت أدقى يسجزة يدو ضد كد شددنا كل وعضي مركلية أيا قيلو إسقبصتي أردوغان أو هنجبي نتنياهو يرقيسة haddaba maxaa la isku hayaa Mareykanku duqeynta muxuu ka yiri maxay doonayaan Netanyahu iyo kooxdiisa haddii ay maxaabiistoodii qaateen ma dhabba inay dagaalkii doonayaan inay dib ugu laabtaan haddaba sheeko la yaab leh oo goordhow ka dhacday Gaza faahfaahinteeda ayaynu barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa waxaa soo kale barnaamijkan idinku hayaa xukuumadda Netanyahu oo diiday in la furo macbar Rafah oo gargaar laga geliyo halkaas waxay soo kale amar ku bixisay gargaarkii maalmahan la gelinayay Gaza in la yareeyo sababtu maxay tahay dhammaan arrimahaas ayaynu barnaamijkeena galabnimo ku faahfaahinaynaa waxaa soo kale aan xusuusinaynaa maanta waxay ahayd Talaado waxaan soo dhignay qiso cusub oo la yiraahdo channelkeena qisooyinka nadaara qiso aad cajiib u ah dadka qisooyinka jecel iyaguna halkaas ayay qisada ka daawan doonaan waxaad geli doontaa qisooyinka nadaara laba halkaas ayaad ka heli doontaa haddaba wixii kaloo saalaan qaybta cas xafiiska ay ku leedahay Gaza ayaa sheegay inay gudoomeen ilaa 45 Falastiiniyiin ah lafahood oo ku dhintay xabsiyada Israa'iil macnaha dad badan oo Falastiiniyiin oo Israa'iil ay xirtay ayaa intii la cadaabayo la dhibayay oo la jir dilayay ay halka ku dhinteen meeqawaay marka waa 45 macnaha 45 lafahoodii Falastiiniyiinta ayaa maartay meel lagu soo riday kadibna waxaa loo soo dhiibay hay'adda ICRC ayaa keentay Gaza isbitaalada ayaa la geeyay waxaa la baarayaa DNA-goodii si reerahoodii markaa qolo walba dad ka maqan yahay inay markaa haddii ay hesho loo siiyo oo loo xabaalo oo meesha sidaa loo xabaalo Falastiiniyiintu marka waxay leeyihiin dad kale oo fara badanaa naga maqan Israa'iil waxay dili kartaa waa dishay waxay maaragtay xubnaha jirka kala bixi kartaa waa kala baxday dadkeeni waa baabees 45 kaliya ma doodaas marka socota laakiin hay'adda laanqeyrta cas waxay cadaysay in intaas la soo dhiibay dhanka kale waxaa la sheegayaa iyaguna in ay dhiibeen shalay gelinkii dambe 4 kamida qolooyinkan Israa'iiliyiinta meedadkoodii ay hayeen ay Xamaas ayaduna laanqeyrta cas ku wareejisay waxaa la geeyay dhanka Israa'iil maanta waxay sheegtay baaritaanka ay ku sameysay 4 lafii loo dhiibay inay sax yihiin laakiin waxay yiraahdeen kuwa kalena waa in la soo dhiibaa haddaba marka qodobkaas hawsha ku saabsan wax isweydaarsashada halkaas ayay ka socotaa haddaba marka aan idin soo wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray hay'adda laanqeyrta cas ayaa la sheegay in 45 meydad ah Falastiiniyiin maxbuus ahaa ay markaa Israa'iil u soo dhiibtay kuwaasoo la sheegay in Falastiiniyiinta loo dhiibay dhanka kalena Israa'iil waxaa la sheegay 4 meydad lafihii loo dhiibay inay garteen oo markaa ay dad Yahuuda noqdeen sida ay yiraahdeen way arinta kale xiisaha leh waxay tahay oo maanta soo baxay diyaarad Israa'iil leedahay ayaa duqeysay Gaza hay sidee wax u jiraan xabad joojintii maxaabiistoodii markay qaateen bay bilaabeen kan awalba lugooyo socotay ahayd waa tii Netanyahu iyo kooxdiisa ay yiraahdeen maxaabiista markaa noo soo qaado dagaalka ma ku noqonaysaa marka sheekadan ayaa marka waxay dhalisay buuq fara badan ee dhalisay Turkiga iyo Qatar iyo Masar Mareykanka iyo kala dul marka maxay soo idinka damiinka ma ahayn xataa waxay sameynayaan diyaarad drone ah ayaa inta baxday ayay iska duqeysay dad meel jooga Gaza 6 qof ee dishay oo shahiiday dad kalena way dhaawacmeen dad xabad joojin ogaa oo iska nasanaya meel iska jooga
ayay nagta ka saartay eedabarada intaa la eg iyo wixii heshiis oo la galay ha sheegin dalku waa niman imtixaana waa niman lugooyo badan marka maxay leeyihiin waa la weydiiyey maxaa u samaynaysaan kulaha meel ay ciidankeenu joogeen oo la yidhaahdo khadul asfar laynka jaallaha ah meeshiin ciidankeena joogin ayay dadkan u soo dhawaadeen marka diyaaradda daroonkaa aragtay ciidankeena khatari ku jireen sidaasay marka rasaasta ugu furtay reer gazana waxay leeyihin anagu ciidankooda uma dhawaane guryaheenna meesha ku yaallaan soo fiirsanaynay dheheen dadkii la weeraray xaafadda shujaaciya waa shujaaciya dee waa meelaan caadi ahayn way yaqaanaan marka waxay taagan yihiin kuwaanna waxay joogaan war annaga guryaheennaa soo fiirsanayn ciidankooda shaqo kuma lahayn nimankana waxay taagan yihiin ciidankeena in loo soo dhawaad maran war sidee wax u jiraan haddaba markaan idintu soo urarkii ugu dambeeya laga qoray sheekadaas haddaba aljaziira waxay tiri galabta 6 ayaa shahiiday rasaas ay ciidanka Israa'iil ku fureen dadkaas iyadoo lagu guda jiro wariba xabad joojintii Gaza ee dhawaan lagu heshiiyey warbixinta way sii socotay waxa leeyahay warar laga helay dhinaca Falastiiniyiinta waxay sheegeen 6 muwaadiniintooda inay shahiideen kuwa kalena ay dhaawacmeen maanta Talaada kadib markii Israa'iil ay duqeysay magaalada Gaza iyo Khan Yunis waxaana la sheegay iyadoo lagu guda jiro wariba xabad joojintii lagu heshiiyey in duqeynta ay dhacayso haddaba mustashfaaga ama cusbitaalka la yiraahdo Macmadani ayaa sheegay 5 muwaadiniina inay shahiideen markii diyaarad Israa'iil ay leedahay nooca loo yaqaano kawaad copter oo diyaarad drone ah ay markaa dadka muwaadiniinta ah oo guryahooda xaafadda la yiraahdo xay shujaaciya bariga Gaza ku taala soo fiirsanayay inay markaa rasaas ku furtay oo dadka ay weerartay marka sheekadaas marka sheeko waxay ahayd sheeko yaab leh ahayd wala xataa shaqadii socota nimankii xamaasa dadkii lafiya soo saarayaan nimankan rafoodi qaar waa la sii qaar kale way socdaan ayagu lafay soo dhiibeen shalay maxaabiistii maxaa duqaytaan marka meesha ka timid marka ninkii Erdogan ahaa ayaa markii loo sheegay la yiri nimankii way duqeeyeen Gaza markaasoo xanaaq furka doortay haddaba marka aan idin soo wararkii ugu dambeeyay laga qoray Erdogan hadalkiisa uu jeediyay markii sheekadan uu maqlay Erdogan wuxuu sheegay Israa'iil way ogtahay waxa ay sameynayso haddii xasuuq ay ku soo noqdo Gaza waxa ay la kulmayso way ogtahay madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay Israa'iil waxay si fiican u ogtahay yiri qiimaha ay ku kacayso sheekadan haddii xasuuqii Gaza ay mar kale soo celiso dib u dhiska Gaza waa muhiimadda ugu weyn oo hadda aynu ka shaqeynayno waxaan ku dadaali doonaa inaan daboolno baahiyaha dadka ka hor inta aanu iman xilliga jiilaalka oo markaa dhibaato fara badan dadka ay la kulmi doonaan waa inaan sii wadnaa garab istaaga reer Gaza oo aan la xisaabtanno kuwa mas'uulka ka ah dambiyadii xasuuqa ee dadkaasi loo geystay Erdogan wuxuu sheegay isagoo ka hadlaya arintan soo cusboonaatay bariga dhexe mar dambe uma dulqaadan karo dagaalo wada xaajood guracan iyo heshiisyo kala daadsan oo aan marnaba la fulinay mar dambe ma idinka yeelayno waxa aa wadaan wax sax ma hadda waxaan ka shaqeynaynaa magaalada dib u dhis sidii loogu sameyn lahaa aan lacag u aruurinaynaa adikuna waa bilowdeen miya xasuuqi ma bilowdeen waxaan aqbalayna ma hanuun marka sheekada iyaduna waxay ka mid tahay wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay inkastoo Israa'iiliyiintu ay ku marmarsiyoonayaan waa loo soo dhawaaday laakiin waxa la arkaa wax ka jira ma jiraan nimankan say wax walba ku fashilin lahaayeen Netanyahu iyo kooxdiisa oo dagaalkan ilka arka ayaa hawsha wataala leeyahay marka waa la arki doonaa kulay wixii kale soo kordha qadar xayisiisa kadib waxaan u gudbi doonaa xukuumadda Netanyahu waxay diiday maanta
in la furo arbacada berito lagu ballansanaa macbar rafax raashinka kasoo gudbaya iyo gargaarka waa la xaraaya tiri weliba gargaarkii maalmahan galayay waa badan yahdeen wax gargaaroo badan maaragtay ma la gelin karaba gargaar yaraa galaya sababtuna maxay tahay adika arki doona haysiita kadib faafa kaga hadlaynaa arrimihii ugu dambeeyay gargaarka iyo xaaladda Gaza halka ay marayso berito arbacada waxaa la doonayay in si rasmi ah loo furo macbarka rafax iyadoo midowga Yurub ay sheegeen shaqaalahoodii inuu diyaar yahay halka ka howlgali lahaa laakiin waxaa la sheegay Israa'iil inay diiday dowladda Netanyahu ma yitin waxay sidoo kale dowladda Netanyahu soo saartay war ay leedahay gargaarka Gaza galaya waa in la yareeyaa dhowr boqol baabuur ay galaysa ma jirto wax yar sababtuna maxay tahay sababtu waxa way yiraahdeen ma soo dhammaystirin 28 lafaha naga maqnaa 4 kaliya aan siiyeen 24 maqan marka waa inay maartay soo dhammaystiraan markaas wax walba la dhammaystiraya laakiin iyagu waxba soo dhammaystirin si anagu gargaar fuul u galin waa diidnay haddaba marka aan tuso wararkii ugu dambeeyay sheekadaas kanaalka leeyahay 13 ee Israa'iiliyiintu leeyihiin wuxuu sheegay hogaamiyaasha siyaasadda Israa'iil ayaa go'aan ku gaaray in la yareeyo gargaarka galaya Gaza kanaalka 13 Israa'iil wuxuu leeyahay hogaamiyaasha siyaasadda ee madaxda ka Israa'iil ayaa go'aamiyay in markaa aan la furin macbarka rafax iyadoo la sheegayo in aan la soo dhammaystirin wali dadka laga haystay lafahoodii oo markaa aanay Xamaas wali soo dhammaystirin Netanyahu waxa uu sheegay isagoo la dardaarmaya hay'adaha ammaanka in la yareeyo gargaarka galaya Gaza sidoo kalena aan la furin macbarka rafax marka ninkan waa nin iska daba wareeg badan haddaba xaalka meeshaasu waxa uu noqon doono lama yaqaan nimankan yahuudda waa niman dhib badan maanta dhan saas isaga ka daba wareejinayaan hadda waxay leeyihiin gargaarka waa la dhimaya kana maxaa marmarsiyo yaray raadinayaan nimankan Xamaasana waxay leeyihiin war meesha lafaha aynu ka soo gurbinayno waxay u baahan yihiin aalado waaweyn guryo badan oo dumay ku hoos jiraan nimankan lafood in la soo saaro way guriyii marka qalabkii iyo cagafkii ka tirbaladii wixii qaadi lahaa ayaa meesha ma wax badan ma haysano marka awood badan ma hayno nimankan marka qeyl ka dhigaan waxay lafihii walina loo ma keenin 28 sidaas darteed gargaar badan ma gelineen waxba ma gelineen marka reer Gaza ilaahooda qabaan xaalku marka halkaas u baraya wararkii ugu dambeeyay ee la qoray ayaynu halkan idinku soo gudbinay waxa soo kale inuu xusuusinayaa maanta waxay ahayd talaado channelkeena kale ee qisooyinka nadaara laba waxaan soo gelinay qisadii maanta oo talaado ahayd oo aad cajiib u ah dadka qisooyinka jecel iyaguna halkaas ay ku feesteenayaan oo ay qisada ka daawanayaan barnaamijyada la gareeyo oo share gareeya hadaad cusub tahay subscribe saar channelkeena inta aan markale kulmaynana nabadgelyo